kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa janaalka dabagalka wararka waa 20 bisha koobaad sanadka 2026 qodobada ugu waaweyn wararka aanu xilligan idin haynana waxaa ka mid ah warbixinno ay baahiyeen warbaahinta Israa'iil oo ka digay qorshe xasaasi ah oo Masar ay ka wado gudaha Soomaaliya haddaba qorshahan ay Yahuudda qayladhaanta ka soo saartay warbixin ku saabsan warkeena ayaad ku daawan doontaan maxaa ka run ah safarka la sheegay in Cabdiraxmaan Cirro uu ku tagay Israa'iil xiisada Jabuuti iyo Somaliland oo ka sii dartay haddaba maxay tahay tallaabada xasaasiga ah oo ay qaaday dowladda Jabuuti Soomaaliya iyo Qatar waxay kala siixdeen heshiis cusub oo culus xiisada Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ee ku wajahan Yemen oo ka sii daraysa iyo Donald Trump oo warqad caalamka ka yaabisay u diray ra'iisul wasaaraha Norway intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka janaalka dabagalka wararka hadii ku cusubtay janaalkan kusoo biro subscribe saar muuqaalkana like saar share gare oo la wadaag saaxiibada waad ku maasantahay inaad mar walba la socoto wararka aanu halkan kusoo gudbino haatan warkii oo fidsan warbixinno ay baahiyeen warbaahinta Israa'iil ayaa ka digay in Masar ay ballaarinayso joogitaankeeda military iyo midka amni ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika tallaabadan oo lagu sheegay mid jawaab toos u ah waxa ay Qaahiro u aragto saameynta sii kordhaysa ee Israa'iil ay ku leedahay gobolka sida lagu sheegay warbixin uu baahiyay telefishinka ku hadla afka Cibraaniga ee I24 News Masar waxay sare u qaaday lugta ay ku leedahay arrimaha Soomaaliya kadib markii Israa'iil ay aqoonsatay Somaliland dhaqdhaqaaqa aqoonsiga waxaa la sheegay in hay'adaha amniga Masar ay u arkaan qatar toos oo ku wajahan xasiloonida gobolka iyo danaha istiraatiijiyadeed ee Masar ila dhanka amniga oo Israa'iiliina laguna xusay warbixinta ayaa sheegay in Masar ay xoog saarayso taageerada dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ujeedada Masar ayaa lagu sheegay ilaalinta midnimada dhuleed ee Soomaaliya iyo ka hortagga cawaaqib xumo dhanka amniga oo ka dhalan karta dhaqdhaqaaqyada Israa'iil ee Geeska Afrika warbixintu waxay intaas ku dartay in saraakiisha Masar ay aaminsan yihiin in aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland uu qayb ka yahay qorshe ballaaran oo Yahuudda ku doonayso inay saldhig istiraatiijiyadeed kaga samaysato agaarka marinka Baabul Mandab iyo Badda Cas kuwaasoo ah goobaha halbowlow ah amniga badaha ee Masar waxa kale oo jirta cabsi ay Qaahiro qabto oo ah in Israa'iil ay sii xoojiso iskaashiga ay la leedahay Ethiopia xilli xiriirka Masar iyo Addis Ababa uu aad u xun yahay sabab la xiriira biyo-xireenka Geed iyo arrimaha webiga Niil isagoo la hadlayay kanaalka falanqeeya Israa'iiliya oo lagu magacaabo Eddie Cohen ayaa Israa'iil ku tilmaamay awood weyn super power oo doonaysa in saameynteeda ay ku fidiso meel ka baxsan bariga dhexe ilaa gudaha Afrika si ay ugu dhawaato cadowgeeda gobolka Yurub warbixintu waxay xustay in Masar ay bilowday in ciidamo iyo la taliyayaal military ay u dirto Soomaaliya horaantii 2024 kadib heshiis difaaco dhexmaray labada dal wixii intaas ka dambeeyay Qaahira waxay Muqdisho siisay taageero amni iyo mid kasaadka gaar ahaan dagaalka ka dhanka kooxda shabaab qiyaaso dhanka amniga oo I24 News ay soo xigatay ayaa tirada ciidamada Masar ee hadda ka howlgala Soomaaliya waxay ku sheegeen 2,000 kuwaasoo ku jooga heshiisyo laba geesooda iyo qayb ka mid ah howlgallada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika geesta kalena maxaa ka runa safarka la sheegay in Cirro uu ku tagay Israa'iil warar aan si rasmi ah loo xaqiijinayo sheegaya in madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu safar ku tagay Israa'iil waxaana saacadihii la soo dhaafay warkan uu si weyn u qabsaday baraha bulshada xilli ay soo baxeen xoga dhanka duulimaadka ah oo shaki dhaliyay hadalhayntan ayaa xoogaysatay 18 Janaayo maalinimadii Axadda kadib markii qoraal lagu baahiyay barta X ee akoon ku magacaaban Rabbi Afihij uu sheegay in madaxweyne Cirro uu gaaray Israa'iil si uu dhameystiro ku biirista heshiisyada Abraham Accords si kastaba akoonkaas oo isticmaalayay
sawirka falanqeeya siyaasadeed oo Soomaaliya ayaa markii dambe la xiray iyadoo dad badan ay ku tilmaameen mid marin habaabin ah oo lagu kalsoonaan karin. inkastoo isha warkaas ay noqotay mid shaki weyn la geliyay, haddana xoogta duulimaadyada ee ilaha furan ayaa muujisay dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn. diyaarad qaas ah oo nooceedu yahay Hawker 800 XB T7 NKS ayaa la xaqiijiyay inay axadii ka soo duushay garoonka Ben Gurion ee Israel iyadoo soo martay hawada Ethiopia kuna degtay Hargeysa. ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi oo ka soo baxay xukuumadda Hargeysa ama Tel Aviv oo ku saabsan cidda saarnayd diyaaraddaas ama ujeedada safarka. mas-uuliyiinta Somaliland oo warbaahintu ay la xiriirtay kama aysan jawaabin codsiyada ku saabsan xaqiijinta safarka madaxweynaha. dhacdooyinkan ayaa imaanaya wax ka yar bil kadib markii ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo madaxweyne Cirro ay yeesheen wadahadal qaadka telefoonka 26 Diseembar sanadkii hore. wicitaankaasi oo ahaa mid taariikhi ah, Netanyahu waxa uu ku sheegay in Israel ay aqoonsatay madax banaanida Somaliland isagoo casuumad rasmi u fidiyay madaxweynaha Somaliland. Cirro ayaa waqtigaas aqbalay casuumadda isagoo ballan qaaday inuu booqan doono Israel sida ugu dhaqsiyaha badan sanadkan 2026. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si adag kaga hortimid tallaabada Israel iyadoo ku tilmaamtay xadgudub qaawan oo ka dhan ah qarannimada iyo midnimada Soomaaliya. beesha caalamka inteeda badan ayaa weli u arka Somaliland inay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya, inkasta oo Somaliland ku dhawaaqday madax banaani 1991. xilli ay jirto xiisad diblomaasiyadeed iyo hubantilaan ku aadan warka safarka, indhuhu waxay ku sii jeedaan Hargeysa iyo Tel Aviv. waxaan idiin soo gudbin doonaa wixii warar ah ee ku soo kordha. dhanka kalena xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Jabuuti iyo Somaliland ayaa gaartay meel sare kadib markii dowladda Jabuuti ay si adag kaga hortimid aqoonsiga Israel ay sheegtay inay siisay Somaliland. tani markaasi Jabuuti iyo Somaliland waxay qaadeen tallaabooyin muujinaya sida uu xumaaday xiriirkii labada dhinac, iyadoo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Jabuuti ay gebi ahaanba joojisay daabacistii baasaboorradii u badnaa ay lahaayeen mas-uuliyiinta Somaliland. in ka badan 1400 oo baasaboor Jabuutiya kuwaasoo ay soo codsadeen dad isugu jira xildhibaano, odayaal dhaqan iyo saxafiyiin caan ah oo ka soo jeeda Somaliland ayaa gebi ahaanba la kansalay. baasaboorka Jabuuti ayaa muddo dheer ahaa mid ay adeegsadaan madaxda iyo siyaasiyiinta Somaliland si ugu fududeeyo isku socodkooda caalamiga, maadaama kan maamulka Somaliland aan laga aqoonsanayn wadamada caalamka. arrintan waxay muujinaysaa heerka khilaafka labada dhinac, iyadoo Jabuuti ay sii kordhisay cadaadiska ay saarayso Hargeysa si ay u muujiso taageeradeeda ku aadan midnimada Soomaaliya xilli ay meel adag iska taagtay aqoonsiga Israel. xukuumadda Somaliland ayaa dhawaan dhankeeda joojisay duulimaadada diyaaradaha dalka Jabuuti ee Air Jabuuti. diyaaradan ayaa 4 maalmood isbuuc kasta duulimaad waxay ka samayn jirtay garoomada diyaaradaha ee Somaliland, gaar ahaan kan magaalada Hargeysa. Somaliland ayaa tallaabadaas qaaday iyadoo ka jawaabaysa go'aan ka soo baxay dowladda Jabuuti kaasoo lagu xiray xafiiskii Somaliland kaga furnaa dalkeeda. xafiiskaas oo furnaa tan iyo sanadkii 2012 ay dhawaan dowladda Jabuuti sheegtay in albaabada la isugu laabay sababo la xiriira aqoonsiga ay Israel siisay Somaliland, kaasoo si adag ay u diiday. Jabuuti ayaa sidoo kale sheegtay in aqoonsigaasi uu ka hor imaanayo xeerarka iyo shuruucda caalamiga, isla markaana ay si cad kaga soo horjeedo. Jabuuti waxay ka mid tahay dowladaha dariska ah ee sidaada ka hor yimid go'aanka Israel ay ku aqoonsatay Somaliland, waxaana garab istaagtay Soomaaliya iyadoo dhex joogta golaha ammaanka ee si adag u difaacday madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. weli saaxiibayaal waxaad nagala socotaan channelka dabagalka wararka. markana dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Qatar ayaa kala siixday heshiis iskaashi difaaca kaasoo lagu xoojinayo xiriirka military iyo wada shaqaynta amni ee u dhaxaysa labada dal. heshiiskani waxaa saxiixay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka difaaca ee dowladda Qatar Sheekh Sacuud bin Cabdiraxmaan bin Xasan Al Thani. heshiiska iskaashiga difaac ayaa diiradda saaraya tababarada ciidamada, isdhaafsiga khibradaha military, horumarinta awoodda difaaca iyo xoojinta wada shaqaynta amniga si loo taageero dadaalada lagu xoojinayo amniga iyo xasiloonida gobolka.
saxiixa heshiiskan ayaa mar kale adkeynaya xiriirka istaraatiijiyadeed ee Soomaaliya iyo Qatar waxaanu muujinaya sida labada dal ay kaga go'an tahay in si wadajir ay kaga shaqeeyaan horumarinta difaaca amniga iyo iskaashiga militariga ee mustaqbalka. dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa shalay ka qayb galay furitaanka bandhiga iyo shirweynaha caalamiga ee difaaca badda ee Dooxa 2026 kaasoo si rasmi ah u daafuray amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. bandhiga Dooxa 2026 oo ka mid ah munaasabadaha caalamiga ee ugu waaweyn ee difaaca badda ayaa lagu soo bandhigayaa tiknoolajiyada casriga ah iyo qalab military. ka qaybgalka wasiirka difaaca ee bandhigan waxay muujinaysaa dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku xoojinayso awoodda ciidamada iyo balaarinta iskaashiga difaaca iyo midka amniga ee caalamka. dhanka kalena xiisadda Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ee Yemen ayaa ka sii daraysa. dowladda Yemen ee uu taageero Sacuudiga ayaa ku eedeysay Imaaraadka Carabta in xabsi qarsoodiya ay ka maamusho saldhig ciidan oo ku yaala duleedka magaalada dekedda ah ee Mukalla ee koonfurta Yemen. eedeyntaas oo Abu Dubai ay si adag u beenisay. eedeyntan ayaa sii hurisay xiisad diblomaasiyadeed iyo khilaaf soo jireen ah oo u dhexeeya labada dal ee saliidda qaniga ku ah ee Khaliijka. eedeymahan culus waxaa soo jeediyey Salim Al-Qambashi oo ah gudoomiyaha gobolka Xadramuud ee bariga Yemen intii lagu guda jiray safar naadir ah oo warbaahinta loo qaban qaabiyey. dowladda Sacuudiga ayaa wariyaal caalami ah oo ay ku jirto koox ka socota oo kala dowrarka ee Reuters waxay ka qaaday Riyadh iyadoo geysay saldhigga cirka ee Riyaan oo u dhow magaalada Mukalla. Al-Qambashi oo qabtay shir jaraa'id oo telefishinka laga sii daayay ayaa sheegay in tallaabooyin adag laga qaadi doono Imaaraadka iyo hogaamiyaha kooxda gooni-goosadka ee koonfurta Yemen kaasoo isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ay sheegeen in Imaaraadka uu si dhuumaaleysiya dalka kaga saaray. dhanka kale Imaaraadka Carabta ayaa beeniyey hadalka gudoomiyaha iyagoo ku tilmaamay wax aan dhaafsiisnayn been abuur ula kaca iyo marin habaabin. bayaan ka soo baxay oo wasaaradda difaaca Imaaraadka Carabta ayaa lagu yiri xarumaha la sheegayo waa kaliya goobo ciidan qolalka howlgallada iyo gabaadyo la adkeeyay oo qaarkood dhulka hoostiisa ku yaala waana qaab caan ah oo laga yaqaan garoomada iyo xarumaha ciidamada adduunka mana laha macno dhaafsiisan kan ciidanka. waxay sidoo kale ku celiyeen in ciidamada dalkaasi ay si rasmi ah kaga baxeen Yemen bishii December 2025. sargaal u hadlay kooxda STC ayaa Reuters u sheegay inay si buuxda kaga go'an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo cadaaladda isagoo ka jawaabaya eedeynta ah in kooxdaas oo Imaaraadku uu taageero ay maamuleysay xabsi qarsoodiya. hadallada Qambashi ayaa ka mid ah eedeymihii ugu cuslaa ee loo jeediyo Imaaraadka Carabta ee intii uu socday dagaalka afka ee kala dhexeeyay Sacuudiga. khilaafka ayaa banaanka u soo baxay sanadkii hore markii dagaalyahanada STC oo Imaaraadku uu taageero ay gobollo muhiim ah ka saareen ciidamada dowladda Yemen ee caalamku u aqoonsan yahay Sacuudigan uu taageero. intaasi kadib dabayaaqadii bishii December Sacuudiga ayaa duqeeyay waxa uu ku sheegay shixnad hub iyo qalab oo Imaaraadku u waday STC duqeyn ka dhacday magaalada Mukalla. tallaabadaas ayaa horseeday in STC ay jabto Imaaraadkuna uu ka baxo halkaas kadib ku dhawaad 10 sano oo uu ahaa awoodda ugu weyn ee dhulka joogta. Rashad Al-Alimi madaxa golaha madaxtooyada Yemen ee Sacuudiga uu taageero ayaa la kulmay taliye Fahad bin Hamad Al Salman taliyaha ciidamada wadajirka ee isbahaysiga si ay kaga wada hadlaan iskaashiga ciidan. Alimi ayaa amaanay taageerada Sacuudiga ee Yemen oo isugu jirta gargaar bid'aantinimo, mashaariic horumarineed iyo kaalmo dhaqaale oo mushaaraadka lagu bixiyo. khilaafka u dhexeeya Riyadh iyo Abu Dubai ayaa ku baahay gobolka waxaana isugu jira arrimaha siyaasadda iyo soo saarista saliidda. labada dal waxay sidoo kale ku jiraan tartan dhaqaale oo adag oo ku jirto cidda soo jiidan karta maalgashiga shisheeye iyo dalxiisayaasha ugu badan iyo cidda saami weyn ka heli karta tiknoolajiyadda AI-da. toddobaadyadii la soo dhaafay dadka wax ka falanqaya labada dhinac ayaa sheegaya in baraha bulshada la isku weydaarsanayay eedeemo culus taasoo muujinaysa khilaaf aan horey loo arkin. boqortooyooyinka Khaliijka ayaa horey khilaafkooda u qarin jiray si uu muujiyaan midnimo ka dhan ah cadowgooda guud ee Iiraan.
gun iyo gabagabana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariin qoraala oo u diray ra'iisul wasaaraha Norway waxa uu ku sheegay inaanu mar dambe dareemayn waajibka inuu ka fakaro nabadda oo qura maadaama aan la guddoonsiinin abaalmarinta nabadda ee Nobelka isagoo mar kale ku celiyay dalabkiisa ahaa inuu la wareego maamulka jasiiradda Greenland. qoraalkani oo maamulka Mareykanku uu si ballaaran ula wadaagay dalal kale ayaa jawaab u ahaa fariin kooban oo kaga timid ra'iisul wasaaraha Norway iyo madaxweynaha Finland. labadan mas'uul ayaa ka soo horjeestay go'aanka Trump uu canshuuraha ugu soo rogay xulafada Yurub kadib markii ay diideen in Mareykanka uu la wareego gacan ku haynta Greenland sida uu sheegay ra'iisul wasaare Stora. fariintooda ay Stor iyo Stab waxay ku tilmaameen baahida loo qabo in la dejiyo xiisadda hadallada kulul iyagoo codsaday in qadka telefoonka ay ku wada hadlaan Trump. hase yeeshee jawaabta Trump ayaa timid waqti yar uun kadib markii fariintooda ay direen. gacaliya Jonas maadaama dalkiinu uu go'aansaday inaanu siinin abaalmarinta nabadda ee Nobelka anigoo joojiyay 8 dagaal iyo ka badan ma dareemayo waajiba inaan si gaar kaga fikiro nabadda inkasta oo mar walba muhiimad ay yeelan doonto balse hadda waxaan ka fikirayaa waxa wanaagsan ee danta u ah Mareykanka ayuu jawaabtiisa ku yiri Donald Trump. Donald Trump ayaa si furan ugu ololeynayay in la siiyo abaalmarinta nabadda ee Nobelka taasoo sanadkii hore lagu doonsiyay hogaamiyaha mucaaradka Venezuela Maria Corina Machado. dhowr jeer ayaan Trump si cad ugu sharxay xaqiiqda labada ogsoon yahay ee ah in guddiga Nobelku yahay mid madax bannaan oo aysan ahayn dowladda Norway cidda bixisa abaalmarinta yiri Stora. Machado ayaa toddobaadkii hore biladeeda dahabka ahayd guddoonsiisay Trump intii loo guda jiray kulan ka dhacay aqalka cad inkastoo guddiga Nobelka ee Norway ay sheegeen in abaalmarinta aan la wareejin karin la wadaagi karin ama aan lagala noqon karin qofka la siiyay. guddiga Nobelka ayaan weli ka jawaabin codsiga la xiriira arrintani. fariintiisa uu u diray Stor Trump waxa uu sidoo kale mar kale su'aal ku geliyay madax bannaanida Denmark ee Greenland isagoo yiri Denmark dhulkaasi kama difaaci karto Ruushka ama Shiinaha oo marka horeba maxay xuquuq lahaanshaha ugu sheeganayaan. ma jiraan dukumentiyo qoran ee kaliya waa doon halkaas caga dhigatay 100 sano ka hor laakiin annaguna doonyo waan geynaa halkaas ayuu yiri. lahaanshaha Denmark ee jasiiradan ballaaran ee kheyraadka macdanta hodanka ku ah ayaa ku cad dukumentiyo sharci ah oo ay ku jirto heshiiskii 1814 Mareykanka laftiisa ayaa dhowr jeer oo hore qiray in Greenland ay ka tirsan tahay boqortooyada Denmark. guud ahaan saaxiibayaal waa nageynta warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtahay channelkan kusoo biro subscribe saar muuqaalkana like saar share garee oo la wadaag saaxiibada. waad ku mahadsantahay inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadiino nolol kulante iyo maana Allah.